barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim Aadan Qabiye tiraya kulan kula qaatay xafiiskiisa suduwayaasha laamaha dawladda ee gobolka Togdheer kulankaasi qabsamo toddobaad kasta maalinta Khamiista ayaa lagu la fuqraa horumarka gobolka iyo waxyaalaha u baahan wax ka qabashada barasaabka gobolka iyo markii kulankaasi soo idlaaday waxa uu ka warbixiyay ujeedada kulankaasi maanta halkan waxa sida ka muuqata noogu timaadeen waa shirkii suduwayaasheeda wiil walba waxaan yeelnaa maalinta Khamiista iyaga anaga golo wasiirno maanta waxyaabaha ugu muhiimsan ku soo hadal qaadnay waxa kamid ah in aan weekend soo socda bisha 16 maalinta hadda in loo shaqeyn doono maalintii debdemiska gobolka Togdheer ee Burco ayaan ku dhawaaqi doonaa debdemiskii qaranka oo dhan baa iyaguna noo iman doona inaan ka tashano si aan u qaabilaynay saan isugu imanlayn waxa kale oo iyaduna noo muhiim ah inaan maanta ka wada hadalno in training loo furo isduwayaasha oo ay konkursi waxaanu kaloon ka wada hadalnay maanta oo iyaguna farxad noo ah in ay jiraan hay'adihii gobolka ka haajiray inaan dib soo celino oo hay'adaha intoodii badnay arbacadii dhaweytaan kula la yeelanay oo isugu yeernay marka laba arbaco kastaba every 2 week inaan mar la kulanno hay'adaha wadanka jooga dhamaantood oo ay halkan noogu yimaadaan oo aan iska wareysano xaaladda gobolka iyo waxyaabaha baahiyaha jira iyadoo taasi muddo hore aan ay gobolka ka dhicin inay nagu soo xirmaan hay'adii oo ay ku ekaan caasimadda kaliya waxa kale oo idin ka muhiim ah xagga nabadgelyada inaan ka wada hadalno iyo waxyaabaha jira taas ayaa iyadana ugu muhiimsanay xagga nabadgelyada gobolka inaan iska kaashano